بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بمحضور نسكله الرئيسية دنبيسبة الله إنه قال الله يستي نمعوين فربضا mid muuqata iyo mid qarsoonba. haddii Allah awood inoo galaado waxaan ku qaadan doonaa xalaqaad musalsal ah ama silsilad ku saabsan makaarimul akhlaaq wa husnul khuluq, dhaqan wanaaga. inagu rajeynaa insha Allah taala in fariinteenu ay gaari doonto cid kasta oo ay khusayso, ilaahayna ka rajeynaa inuu ku islaaxiyo wax badan oo fasahaaday. inagu ilaahay ka rajeynaa wanaaga aynu sameynano inuu ku sugo ama uu ka yeelo mid ku salaysan in isaga kelidii wax laga doonayo. barnaamijkeena waxaynu ugu magac darnay ama aynu niri dad wanaaje. marka dad wanaaje waxa qayb ka noqon doonta silsiladan makaarimul akhlaaq ama dhaqan wanaaga. bal waxaynu insha Allah taala isku day doonaa inaynu yara dul istaagno dhaqan wanaagu maxaa tahay. dhaqan wanaagu waa in waxa wanaagsan la sameeyo, waxa xunna laga tago. culimadu taariif kala duwan bay ku tilmaamaan ama ay ku qeexaan. waxa kamida sida mashhuurka ah ama caanka ah inay culimadu yiraahdaan husnul khuluq ama dhaqan wanaag waxa la yiraahdaa talaqatul wajhi, waji furnaan, وبذل المعروف إن أذوناك سميسو أما أذوناك قد بيسو وأدقار سيسو ضدك كله إيا وكف الأذى عن الناس إن أدبت هذا ضدك أدكا قبصتو أما أدكا هيستو وأنا ضدك دباتين. أرنت النوع عاسي دغن وناقة تعاريف تيدا أما قيحتان كيدو وصدح لا قضب أما الركني وككوبين هاي بل محي دينتين وكقبطا أما هيركي أي كتاقنته. حديثك الصحيح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكوسو حسريي أما وكوسو وريي بعثديسي iyo risaaladii lagu soo dajiyay ujeedada lagu soo dajiyay inay ahayd inuu dhameystiro dhaqanka wanaagsan makaarimul akhlaaq. wuxuu rasuulku leeyahay sallallahu rabbi wa salaamuhu alayhi inma bu'ithtu makaarimul akhlaaq. waxa la isoo saaray oo la isoo diray inaan dhameystiro makaarimul akhlaaq. halka waxaynu ka fahmanaa in badan oo kamid ah risaaladii iyo fariintii Allah subhanahu wa ta'ala uu soo dhiibay ergigiisii nabiyuna Muhammad alayhi salatu wa salaam inay ku wareegayso ama ay ku urursan tahay dhaqan wanaaga ama dhaqanka wanaagsan. dhaqanna badan oo dadyowgii waqtiga nabi Muhammad loo soo diray ee laga soo dhex saaray ilaa yawmina hada ay ka gaabiyeen inuu baro oo u sheego. dhaqanna xun oo ay waqtigaas ilaa hadda ay dadku sameeyaan in laga joojiyo laga celiyo. ilaahay subhanahu wa ta'ala arrinka noocaas isagoo tilmaamaya wuxuu ina leeyahay nabi Muhammad ku sifeynaya wa innaka la ala khuluqin azim. nabi Allah waxaad ku sugan tahay dhaqan iyo khuluq aad iyo aad weyn. intaasaba ku filan inaynu dareensanaano shahaadadaas iyo maragaas ilaahay subhanahu wa ta'ala u siiyay. bal haddaba aynu isweydiino haddii qofku dhaqankiisu wanaagsanaado muxuu helayaa, iyadoo ay xadiis badan ay ku soo aroortay fadliga iyo wanaaga. waxyaabaha uu helay waxa kamid ah kow inuu qofku ku gaarayo dhaqankiisa wanaagsan darajada dadka caabidiinta ah ee habeen oo dhan ilaahay u taagan ee uu cibaadeysanaya maalin oo dhanna u sooman. وكرسولك صلوات ربي وسلامه عليه حديثك في سلسلة الحديث الصحيحة للإمام الألباني وكسو صاريه وكرسولك له إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. وقفك كوغارا قفك مالين أردن صومن هبين أردن سوتشي درجة ديسة أيا وحو كوغارا حسن الخلق. سيدو كلو رسولك نوت المامي صلوات ربي وسلامه عليه مالك قيامها وحا علس ميزانك لسارة إني تهي لقن وناك. وكرسولك تلمامي صلوات ربي وسلامه عليه حديث كإمام الترمذي سورينيو أوليه ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق
ma jiro shay la duldhigo ama la saaro miisaanka ama miisaanka qiyaame oo ka culus dhaqan wanaag waxa kale rasuulku inoo tilmaamaya salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh in uu rasuulku inooga warramay haddii qofka dhaqankiisu wanaagsanaado inuu rasuulkuna jeclaanayo sidoo kalena uu ka mid ahaanayo kuwa rasuulka loo soo dhaweeyey waa kii rasuulku salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi lahaa ma idinka warramaa shay ani xaggayga idin jeclaysiinaya idinna soo dhaweynaya maalinka qiyaamaha markay saxaabadu yidhahdeen haa waa kii rasuulku lahaa salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh axsanukum khuluqa waa dhaqankiina wanaajiyo kiina ugu dhaqanka wanaagsan xaggayga abaalka iyo wanaaggaas ku helaya walaalayaal xusnu lkhuluq waa dariiq ka mida min duruqi almuaddi ila aljanna wadooyinkayna geynaya jannada rasuulku salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh xadiidka saxiixa waa ka ku tilmaamaya ee leh ana zaciimun bibeytin fi acla aljanna liman xasuna khuluqu anigu waxaan u ballan qaadayaa oo aan zaciim ugu ahay beyt ama guri ku yaala fi acla aljanna jannada halka ugu sarreysa cidda ay dhaqankiisa wanaagsanaato waxaynu leenahay walaalayaal dhaqankeenu ha wanaagsanaado ilaahay subxaanahu watacaala khayrka wanaagayna waafajiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh